waxgaradka magaalada Gabiley ayaa maanta si adag u difaacay maayarka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo maayarka magaalada Berbera Cabdulkoon Cirdin oo muddooyinkii ugu dambeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud injineer Faysal Cali Waraabe uu dacweynayay dacwadaasina ay ku sifeeyeen inay tahay mid sharciga baalmarsan waxayna farta ku fiiqeen inay labada maayar ka soo baxeen garabkii uu hogaamin jiray Jamaal Cali Xuseen ee Ucud taasina ay daliil cad u tahay inuu hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Faysal Cali Waraabe aanu xaq inuu dacweeyo maayarada magaalooyinka Berbera iyo Gabiley ee wax qabadka ballaaran ka geystay magaalooyinkaasi ay xukumaan xisbiga Ucud gudoomiyihiisa Faysal Cali Waraabe oo la leeyahay wuxuu ku antacoonaya ama ku dacwoonaya in uu bedelanayo xildhibaanadii ka soo baxay garabkiina Ucud sida Berbera maayarka Berbera kamid yahay oo maayarka Gabiley kamid yahay waxaan horta dadka la socodsiinayaa anigu waxaan ahaa gudoomiyihii xisbiga Ucud ee gobolkan ee ugu dambeeyay intii aan labada garab ee Ucud aan kala jabin midna waxa weeye wax qarsoonba maaha annagu haddaan reer Gabiley nahay waxaanu ahayn garabkii Jamaal Cali Xuseen ee magaciisu ahaa Ucud xisbiga soo baxay ee maayaradu ka soo baxeen ee haddii alla ku rooyahay dee heer qaran tagayna waa Ucud Faysal Gabiley weligii 1500 cod kama helin Faysal intuu soo jiray 18 kun oo cod Jamaal iyo garabkiisii Ucud ayaa ka helay gobolkan afarta xildhibaan ee maayarku ku jiro ee maanta xilkii ummadda halkan ku haya ya waxay ka mid ahaayeen garabkii Jamaal Cali Xuseen oo aniga ka mid ahaa waxaan leeyahay markaa Ucud laba garab bay noqotay kala jirtay Ucud iyo Ucud Faysal bay kala noqotay Ucud Faysal daacida ilaahay ee meel u joogta habadelato annaguse مثلا مرشحينتي كل حجاي أفرتي حلبانة هذا كصباح شنطة حلبانة كل حاجة أما لحظة حلبانة كل حاجة أكو أستيسر مركز سجياشو أنا يجرا كمل وحنا نهاي قرب كان Ucud قرب في جماعة على حسين بالله الله كواي مكتشوجانا أنا قاعد يتمنى أو أي حلقة اللي يكون أو أي مسؤوليتي ومتن أي كهيا وحليها مركا فيصل حدي عيد لبدل يا فيصل وفيصلوا بهاي عيد وبدلوا ده قدوميها برا ما كو بدل لها عبد الرحمن لكن وحيلتها إنه هذا الكيسكية هاي ده هذا الكيسكية يلوم فيصل لا له وحن كلها لها ويقول قبل يا كلا تكنا شيئين هذا أنا وحن أقول لها هذا القادم وحي Ucud أها يا أخي هاي السلسلة مرتين Ucud ما أنت بواتها صور هاي شندت بات بسيرة تاي ما شاء تكلم ما يركب Gabiley ومدي شابه وحن دوننا يعني وحن آذوا يا بيان وحوي وحاو كل حركة يا فيصل ده ما يركب Berbera يا ما يركب Gabiley وحلبنا ما يركب حفتيمي لبنا ما يربط ده ومدي Berbera تجني يا Gabiley ده كان كده هاي يا دورته حين كودي بتفيصل لو مدي بن عيد كلو دي بتينا ما شفتوا أنا قا أمتي أي مسؤول كهاي أنا بودي بن حلك إلهي خلقين بو يلا عيدنا كما قال كرتو أنا وعلى الله أمرك فيصل وشركة هالكها دافني أفكار هاي استحميني قد يجي كوميشن كل شيء أديك يجمع روح يكون كلام حكومي متكين بكون تنهكر تبعد بشيء كني صدق وقصد الله بكرب بينه صدق كوهاي أنا شفت عينه سلاسل أنا أقول له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا محمد إسماعيل عمر محمد بيت واحد دنيا ما تينا كان له تعودوا سوء وإني كلا ينافس على الورابي وأنا هو هيستنين أنا حكم الصحة
waxay caddaynaysaa dacwaddaa uu soo oogay kininkii la odhan jiray fiilan buu doontaa beryahan doono marmarinaya ha kala gartay ucid iyo niyo ucid waxaa la yidhaha labadan maayare waa iskateenaya waa laba ninoo horta ilmaadero isku reera mar labaadka jamaal cali xuseen buu ilmaaderiye waxaa u arkaa arrin beelasada noocaas horta manay ahayn ucid waxay ahayd niyo ucid dadkii tacabka ku soo saaray ee xisbigan uu maanta ku naaloolayo marba cid ka iibinayo marba gacanta u dhiibayo raggii soo saaray dhiiggooda dacaankooda horamahay annaguna kuwa sala ku jirna markaa faysalow waxaan odhan lahaa niyo ucid iyo ucid kala garo ciday ka galeen jamaal cali xuseen niyo ucid buu ahaay watay cabdishakuur iyo maxamedna niyo ucid bay ahayd ummadda somalilandna niyo ucid bay u codaysay ucid waa tii hore u baxday wasalaamu calaykum xaqna lagu alhid inaad tiraa waxba ka daawan yahay niyo ucid halkay martaa xaq bay u leeyihin inay maraan waana reer kulmiye wasalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa inaan halka ka hadlo arrinkan xisbiga ucid uu ku dacweynayo labada maayar ee maayarka Gabiley iyo maayarka Berbera cabdishakuur cudin iyo maxamed amiin waa loo yahay waxay ka yihiin wadanka labada aynan iyo intii kale ee gashay xisbigu waxaad ogaataa faysal haddii adiga sharciga lagu jabiyey inuu iyagana sharcigu u jabay waxaad ogaataa markii maxkamadda sare wixii ay soo saartay aad baal marteed kelidaa shir qabsatay jamaal cali xuseen dibadda lagaga qabtay kuwana si toosay u gelayaan cid wax ka qaadi kartaana ma jirto sharcigu ciidagale loo jibiyey kuwana waa loo jibin doonaa waxaa kaloo ogaataa qofka soo baxaya ama saansaanta iftiima sare shucaaca cadeeda indhaha bokoorada qabaa ma arkaan markaa waxaan qabaa inaad labadaa inan arki kari laada ood ka xanuunsanayso iyo kii meesha kaaga tiriba iyo jamaal cali xuseen ibraahim kuna magac dheer axmed darlaahi waxaan doonaya in halkan kaga hadlo hawsha beryahan socotay ee soo noqnoqonaysa ee faysal uu ku galgalanayo ee uu gaar uga baxay labada maayar ee Gabiley iyo ka Berbera iyo Gabiley waa degmooyin magacoodu sareeyo waa degmooyin maayaradoodu ay waxtar badan u hayaan xisbi ahaan baan ku dacweynayaa waad sheegtay golaha deegaanka ee awood dowli hadday doonaan iyo codka kalsoonida kala noqdaan ayaa waxa macquul ah inaanay dhici karinba maanta sida ay dadku u arkaan hadda waxaan ku leeyahay faysal xisbigaaga qootootada ah cid la joogaysa ma jirto meel gaariyaana ma jirto waxaan ku leeyahay an kale xaqiiqada aan kale eed la'aan wax horaan tirsanayna arrinkii jamaal baan tirsanayna maanta labada nin ee magacooda kalba ku celinaysa waa laba nin oo isku beela waxaan u arkayaa arrintaas inuu yahay arrin beelaysan min fadlakum waxaan ku leeyahay ka noqo ka aamus arrimaha afka ka gaabso waxaan waliba farayaa tolka tolka ma tagteen inay ku qabsadaan haddii kale waxaa halkaa kaa gaadhay baa loo wada joogi doonaa guuleed cali ibraahim ilkacase shabakadda wararka halwadaag news magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley